marka dadka ka mas'uulka tahay dambiba waxa ugu filan buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qofka inuu dayaco dadku masruufo dambi kaleba hadaan u gelinba intaas dambi ugu filan waayo dadkan kala dhami adaa lagu ogyahay wabadkaaga ooridaada waalidkaaga dadka nafaqadooda ku waajibtaa waa kuwe waa al-usul wal furu' wal azwaaj wa xaaskaaga ama xaasaskaaga iyo waalidkaaga iyo ubadkaaga yar yar kuwa waaweynay la magaalada galeene haygu wareegina wad leedahay waliba ragga hablaha dee lama diray ilaa in guursadaan raggu mar haduu qaangaariya waxa leedahay inaan isku wareegin shaqo tag waqtina wax baro waqtina shaqayso markaas uu noqonaya laakiin ilaa isagoo 25 jir hadda jaamacadana ka bixinaysa screen kana siinaysa iyo quraacda qalad buu fahmaya in wali ciyaaliye buu fahmaya waxba yaan la siin inuu gama jeedo laakiin xaq u sheega iyo wuxuu horta waajib kuugu leeyahay 15 markuu wiilku gaaro dad soo fariisiso oo tira saacadan laga bilaabo anaadi masruufaysa xaqaagu uu iga wareegay sakaad fadrigaagu iga wareegay wal qashaad wax waliba iga wareegay iyo wax waliba adaa isu qaba waxbarashada biilka khalaas aniguna de xaqi waalidka baan kugu leeyahay ilaahay xaqiisiibu kugu yeeshay kii waalidkuna uu ku fuulo eego markaas uu madaxa qabsanayaa wixii dambu ku weydiinaya wuxuu arkayaa inuu ihsaan yahay waana kala baxaan ihsaanka iyo waajibku oo qofka markaad ku qanciseed niqaas la yeelatay tilaabal kutubta soo baaro isu keenkeeno culimada soo weydii waladkii waxa laga yaabaa inaa luqada isku fahmi kartaan baa ku wada soconaysa hadii kala afku buuraya uu ku canaananaya maxaad waxa ay siin weeyay dadka isku dirimayna laakiin waa in la bartaa nidaamka waliba noocan la yiraahdo teenage ama muraahiqiinta dadka soo qaan gaaraya waxa la isku afkartaa qofka inaad xuquuqda barto sharciga ku qanciso niqaash iyo dood yeelataan wuxuu istaawinaya uu sheegto adiguna aad ka jawaabto meel wax isla dhigtaa oo aanad amare iyo orod iyo waad adab darantay ku wadin